بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه كاني ما انتهينا ونبغى وذكر روح وجواء يا محمد. وحافظنا كسلام يا طمان ومدى في السودان والدين الجودان والجزئية جدا. وحنونا حققنا طمان شعب الصومالي. تشعر كله يدرين كيف في الجيل. وحنونا حققنا بولادة. ودرين كيف كسر جواري مثل كسر قوية حمد جوته. وحنونا حققنا dolayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaaray waana kala nagu soo qaaday muqdisho salaantaa kadib waftigaan hogaaminayey waxaanu socdaal rasmiga ku soo maray dalka la yidhaahdo geni koreakari ama faranji victoria waxaanu sii maray dalka etoobiya waxaanu kala kulay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhoo fiican iyo qadarin dalka etoobiya waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan ku arnay labadii wasiire ugu waaweynaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kaloo telefoonka lagula soo hadlay isagoo kormeel ku jira taliyaha ciidamada etoobiya oo dhan ee cusub taasina waxaa muujinaysaa qadarinta iyo milgaha soomaaliya loo hayo waxaan uga kulanay oonaan ku tiro gudanad sabab ku kulanay wasiirka khaarijiga ee jaad oo aanu waqti ku qaadanay inaanu ka wada hadallo qadiyadda somalilan wax badan uga waftiinay waxaan uga gudbinay dalka kenya koreakari oo dalalka afrika ugu daaweeyeyna oo uu madax ka yahay nin oday ah 80 jir iyo dheeraada 50 sano siyaasada soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yidhaahdo alpha conde ninkaasi waa nin ma aaminsan mabaadi'da hantiwadaaga ah socialismka waxaa ku dhahaa raggii usoo halgalaystay ulinta bedelkiisa si ay xornimada uga qaataan faransiiska dhowr iyo 20 dal oo uu goystay faransiisku ayaa la weydiiyey may faransiiskan kusii jiraysaan mise waa ka xoronaysaan keligood geli kuwaakeli oo quran ayaa tiwaan xoronaynaa inta kale wiigeeda yidhaahdeen iyagoo masii joogaynaa isticmaalka teeda dalkii intii ka dambeysay mid walba xornimada qaatay waa axmed sinatuuri dalkii uu ka talin jiray waa arag siyaasadeed oo weyn bay leeyihiin dadka iyo odadoodiba si wacan bay loo qaabilay oo laga wareegeen dabeetana weerarkan xalay baa yimid culays badan bay meelo badan ka maran oo talyaanigu ugu horeeyo oo ahaa hormeedka cadaadka u weeraara talyaanigu ahaa ee u adeegaya qoyl muqdisho odagaas kuma dilcin shalay markuu tegay shirka afrika laba garbana wuxuu soomaaliya xaq bay inta u wareegistay waana arrin innaga inoo taaban dalka afrikaanka walaalayaal weedha xamar ka soo yeedhay laba qodob bay daaran tahay waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguna nagan waa ciidan shisheeye uu ilaaliyo ayaa waxay maageen dowlad ilaa iyo 80 xor ahayd oo sanadkii dhaqaaleed boqolkiiba korno oo dadkeedu 10 milyan yahay oo horumarkii xooluhu way samaynaysa ayay maageen ku yiraahdeen sidee gurigaaga Soomaaliya ugu casuuta taasi waa golaha ka garan geel koraakari iyaga iska celiyay iyagoo intii iyo ka badan ay yiraahdeen dagaalka iyaga iska celiyay kuwaas goolanta labaad waa Soomaaliland Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay u casuumtay Soomaaliland ma geydo maamuuska intaa yeeg in lagu soo dhaweeyo bilgaara maahe maxaa maamuuska u siisay waxaa la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goynta intaa yeeg waxa ku kulfaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qaranka intaa yeeg uma qalmo maamuuska ah waa goynta intaa yeeg waxay u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay soddonkii sano u dambeeyey wixii ka dhacay dalka iyo Soomaaliland wixii loo geystay dad xoogyaal u ah way yihiin dhammaantood garan maayo iyagoo taa hore qaray waxay tan ugu dareen waa ta saddexaade Soomaaliland taariikhdeeda yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo ay ka waxayaan
markii loola jiray soomaaliyadii hore ee bayaalu ka midka ahayd inta taariikh lagu faana miisaankeeda somaliland baa ahayd waa koy ma jirin dad hore afrikaana oo ku yimi isticmaalkii u yimiyo saanta caddaa baddaan wax kula seexan anagu kula seexan mayno ma jiro dad afrikaan oo yidhi dadkaaga ku dhal gabadhaadu ilmaha calooshiisa kulay kada dalka iyaga ee markay foosh tahay naga rab dad kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorriyadda waad haysaa annaga nama goysanaysa heshiis baynu ku dhahay inaad daba joogto waa saddex qodob oo Soomaaliland gaara markii isticmaalku qarnigii 18aad dabeeqad si Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed inay wadaagto ta kale ee ugu fahmay adduunkooda marka waa halgankii dawaawiishta Soomaaliland booda ahaa oo ahayd oo tariikhda Soomaaliland oo ciidankii dawaawiishta Soomaaliland ahaa waa kii Afrika ugu horreeyay ee taariikhda soo kacaysto waa ta saddexaad markii Soomaali gobolada haweensaysay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo soomaaliyiintoodii maxraquuntooda madaxnaqamadooda oo Soomaali oo dhan ka xeeyay oo dawladda Ingiriiska boqortooyada fariistay wax ka socday inaga jira guddigii Suudaanada iyo odayaasha soomaaliyiinta ka soo dalay Cabdilaahi Suudaan Cabdiraxmaan iyo Suudaan Biixi Fay oo maanta kala sharaad Soomaaliland ahay ee ka furmay lahayd markay Soomaali isqoonsatay ee qaranimada lagu heshiiyay isku diiday isku maaqaafay wixii ka dhacaya ee hadiyada gumaysiin ayaana gumaysiin waa farayay dhiibada fursadeen oo ka qaad oo maanta way soo jabay ma lahayn waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen markaas qodobka ay ku hudiseen Soomaaliland ma galeen milgahaas maxaa loo maamusay anaga taariikhda ay soo garanayaan oo tii dambeysay wixii ka dhacay ay ogaayeen سيئة واتي كفت الباي كاتا ثم يكونون يكون قرارين جديد سوماليا تابع ونقوله وكذا علمنا أرض بانو فقد علمنا أخبانو فقد علمنا قرن بانو فقد علمنا حديث بعدنا عدود فقد علمنا وهم ما أنت Soomaaliland oo bidmaayo Soomaali soo haweenaysa shanta bilood ee Soomaaliland sabab maxaa loogu baqayaa Soomaaliland waxay ahayd Soomaaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyay 300 oo kun oo guri oo 200 oo kun hargeysa yihiin ayaa madaafiiciyadii loo daraacay ee meeyay oo maydkiina fi ku dhex jira loogu soo noqday markaasay dib u satay iyo ciidamada badruusatay dadkii cadaawada dhexgan ee Soomaaliland oo qolada dawladii qabiya afreena ay samaysana iyadoo cilmi soo gurman bay ka heshiiyeen oo qolada meesha ugu tagtay oo ka muuqan qaran iyo xoog u dhigtay aan maanta ciidamada karin dhalinyaro haday awliyaashin badr ku saxeexeen haday awliyaashin Ingiriis oo adduunka waxay wada diyaariyeen ciise darac ka dhigteen haday awliyaashin tiina Israa'iil ka soo dhiciyeen ladii ka baqmaan maanta idinka ragga Soomaaliya dhalinyaro bayaashadii ay shaqada gaas oo galeen waa Soomaaliya baa inta qorin harbo waa nafta waa waa fiiman qalayna la haysan يعني ما تنسى عرب الله كذا كسب حقيقة قدر فيها هذا كسب حقيقة عربية ساد إيتلا هذا إلى هذه كل في جوه مانتا وهذا يبغى يسوي يلي كذا وين ما هي إيتلا القديمية والميانة تناسى وياه قالوا ما أوران كسمايا ما أوران بيدنا ما أوران قبل ما أوران مقديشة ما أوران سوي ما أوران كرافة ما تشوف ما كانت تقول حسين سوي ما كانت ولا سوق الله والله ورمي الله من دلالة الله متحسن كل نساء والمسلمين دين قال شو داتي حجراء شو بقولي وهو قابض عي وحكومة الإسلام كان من يوم طلع على مرة قاضي وحبدها جوشينه وحكومة الأول المسلمين وقال في سوق ساشا ومرد سوق عطاقر المدرة وحكومة الأول يسيب هذا يسيب هذا وحنا أنا شيله محل كل شيء هذا المدرة يا هذا كرتية يا هذا المدرة بسنة وحول سويدية ما تيجي واحد عين إلى هذا من الضحك له دوسة غير النار ما قالك هذا سوى الله تمام هذا ساتك هذا ترى جامو تغني سوى بنوسة دوسي
waxaana guudaysatay inay qadiyadeena keento oo eeyuga madaxweyne alfara waa ku bilaabay hiila waa ku haystaa afrikada galbeed arrintaa waxay weelkaadasho ninka arrintaa galay diinta islaamka baa la fadhisay iyo diirkaadiin isku afka mihin isku dhaqan ma mihin faransiis bay ku hadlaan ingiriis bay ku hadlaan isma gaadho isma dhex galo kelmadid iyo dhaqan iyo tod iyo seediixii ahna waxaasuu loo quuda baka warrama lama caqli baka warrama lama caqli waxaan kusoo gabagabeynayaa somaliland guud iyo horumar baan rajeynayaa laga boqon maayo fadhiga kici mayno damarciina wadana codaysu cudurdaadana muqonayo kala taatoonahay tabayaarkina waa kala weynahay berrito weynkaan xisaab safro kala baxanaa caalamkaa kuwa badan baa xigi anugu ciyaaqaadkoo dacdaydeynayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu